maxaa ku dhacay Cabdalle aniga waxba wali tagin u sheegin Isra oo waa istaxjir gurigooda la tagay kiiskii oo lagu waayay waxa tariyo soo wada kolay waxaan kaliya oo soo arkay maxay lagu leeyahay saan oo amarkiisa oo ma dhici karto taliya aad baan ku salaamay shaqadu meel fiican bay noo maraysaa maalintii dhaweeyay dilaagii maxay aanu ka takhalusnay dadkii shacabkii aad bay ugu farxeen waxaan ahay sarkaal ka tirsan ciidanka dambi baarista صح kiis baan baryahan ugu dambeysay dhan baaragnay kiiskii markaa kaarkan waxaan u baahanay tixraaciisii iyo transaction-kiisii ugu dambeeyay saddexdii bilood ugu dambeeyay ay soo daawacdo waa sax walaal yar fadhiiso ilaa 10 minute ka bacdi anaa ku siinaya okay walaal kuwan waa saddexdii bilood ugu dambeeyay way location-kiisina way ku jiraan xagga dambe okay way waa saadkii koolalkii soo galay iyo GPS location-kii intaba way yoo maasantay ayo laadana nin waxaan aragnay Mustafa la yiraahdo oo ay saacada ka hor inta la dilin dilaaga ay lacag $350 oo diray ninkii baadhis ku sameeynay markaan GPS-kii ku baadhnay waxaan helnay location-kii ku sugnaa amar baad u qabtaa inaad soo xidho haye tali aniga waxaasi si soo socdo sooran doona kaasi soo gaabin doona waxaan fahmay halo warwahay xageed maraysaa warhaay soo socoto unda fayl soo dhan aniga kun sekood ka soo laab luqluqyada meesha ka soo wada soo marmar kawdhe waxaan iibinay waa hub magaranaysaa rooliyo maaha harkaan bal ku iibinay waxa laga yaabaa in lagu soo daba galo waxaan waa hub baan iibinaa kootarban baan ku iibinaa cidinimo oga ma aragtay xabad baaskoolada noo soo doonaysa ku khasaarin kun noo yaala meesha ma ogtay marka suluuqyada soo marmaro adoo waxaan ku yiri kun lagu soo laabo ma dabadaada soo ogaado waxa ku daba socday kaaliniyo hadii kala martaa ka noqonayo deeha ubaan iibinaa ma waxaan iibinaa harko mise waxaan iibinaa kalluun baan wadada ku shiilayna saa sameeyo luqyada soo dooma السلام عليكم السلام عليكم كرسمة ما شاء الله الحمد لله الحمد لله رتني waa soo absaantay haba soo absaantay laakiin luqyadii aan soo markay ma soo mar waxa jiranayo dad saaw laygu daba nabayooniyo saawnii daba raadinaya kolba luqyada soo daba maray moogta waxaana ma waxa shalay ku yimid cid oo ma jirto waxaan ku iibiyaa sir ma garatay maanta hadii ninkaan saaxiibkan aad isku qaaligan ahay soo dirin adiga soo dir lahayn adiga igama hesheen moogta marka waxaan oo sharci daran ku iibiyaa deebadana aan wax iibiyaa baaskooladaha uma badana nooc walba taa diirada leh taa caadiga waxaas ma niyo moogta kootarabaan oo ku iibiyaa kootarabaan oo ku iibiyaa aniga ma garanas ninkii saaxiibka soo diray ma ku garanaya si kale ku garanay magaca Mustafa Ahmed ها صور كم جراس هي صور كم جرنا يا ضياد هيد سكونتي وكالي عدل ببا سو دينس هيدي كنا سو بادين
استجي wax security ma joogaan security waxa laga horeeyaa saldhiga aniga haddaan isku sheego waxaan ahay sarkaal ka tirsan ciidanka dambi baadhista sarkaal waxaan tixraaca ka soo helay maxay leeyeen ninkan Mustafa maalin dhaweyd ayaan ku dilnay maxay leeyeen magaalada dhexdeeda wuxuu ahaa nin dilaaya mobilkiisa markaan ka soo qaadnay meesha baadhnay waxaan ku aragnay inaan transaction isku dirteen lacago saasan tixraaga u soo dhacay lacaga maanta laga bilaabana waad xidhan tahay waxaan meesha ku iibisaana maaha wax wadanka maxay anfacaya oo waxay ku tahay amnigii liid ku tahay marka maanta wixii laga bilaabo waad xidhan tahay adiguna namari waxaan halkan yaalo dhan waa hub wadankay liid ku yihiin amba amnigiisa liid ku yihiin Mustafa meesha gibigeeda qof soo saar waxaan yeelanay soo qad taliyo tuu kaadi ha degdegin waxayna sharci darro yihiin ogahay laakiin wax wala afkaan kugu bixin karo sinay wuxuu sheego waxaan iska dhaaf joog anagu manihin askar shaxaad iyo laaluushi wax qaata iminkana wixii laga bilaabo xirantay namari dadka wax daacad ma jiraan horta taliye ud ku maasantay marka hore say soo dhaweysay waa kulankeennii saddexaad halkan waxaan u imaaday inaan inii hambaliyo weyn baynii sidaa xilkii ayna saarnay waajibkeedii waxaad uga soo baxdeen si fiican madaxweyne ayaa iikiin soo faray weyn mar haddaad howlgalkeennii si fiican uga soo baxdeen wixii nii sameeyey qada sharaf markaa maalinta beri toolaa waa inaan isku nimaadnaa insha allah adiga iyo ciidankaagii kula howlgalay oo dhan markaa beri toole waynu sugaynaa tani insha allah howlgalkaas saad uga soo baxdeenna waynii hambaliyeenna aad iyo aad ugu mahadsantiin السلام عليكم دانيالو وعليكم السلام سلموا ونكسان ما شاء الله وين سو ديار متيدين ديار اوكي حفلتي مكان تينا مدحوينين نقول ساعه السمي هذا رمضي هذا ويلا صار شيء وحنا نسينيس انت يا حنوسينس اي نمر كذا شيء اي نوش نيجاتيف warmeyna madi
madaxweynuhu soo dhow yahay markay ma hawsha ma diyaarsan soo diga diyaar ma awalba السلام عليكم مدحوينه soo dhawow wax walba oo ku diyaariyay wax walba oo ku diyaar oo security ma tamay ila security baan socdaa maanta kiis bad kan ku mustaqaad si wanaagsan okay soo dhawow madaxweyne booskaagii ma ku geenayaa halkii aad fariisanaysay ay kugu soo dhaweeyeen martiqaadka waa kan halkan adiga ayaa fariisanaya halkan waxa fariisanaysa saraakiishaadii ciidankaagii intan kale waa dadkii kale martiqaadkii ma ku soo dhaweeyeen wax walba oo ku diyaar soo dhawow dadaal ku soo dhawow hudaalkayga madaxweyne soo dhawow aad iyo aad hudaalkayga madaxweyne ugu soo dhawow wayna isqabooji okay sharaabkana iyo madaxweyne shukran okay soo dhawaada saasaakiina ku soo dhawaada hudaalkayga waan dhowna aad iyo aad madaxweyne uu jooga waa idin diyaar soo dhawaada markaa waarmey namadii soo dhaweeye martishaarta kale بسم الله الرحمن الرحيم قلت إلهي بان بحد اسكالي marka labaad waxa aan idin sheegayaa in xafladan sababta loo qabtay ay tahay in la soo gabagabeeyay kiiskii beriyahanba ay dhalinyarta ciidanka saraakiishii ay soo afjareen dilkii iyo dhibaatadii wadanka ka dhacaysay oo muddo dheer inagu jiitamay ayay soo afjareen marka waxay noo farxada haddaan xukuumadii nahay anoo ku hadlaya afka qaranka jamhuuriyadda Somaliland in aan guddoonsiiyo shahaado sharaf dhalinyarta wadankooda u dagaalantay ee muujisay dadaal dheeraada si ay dhalinyarada dambena ugu daydaan istaybalka ay gaadheen baa laydinka baahan yihiin idinkoo kaliya mas-uuliyaddeeda ma saarna cid walbana way saarantay waxa ii farxada in anigoo bilaashtaaf hortaan socdo taariikh weyn bay noqonaysaa markaynu qaran ahaan ka hadlayno dowlad ahaan saraakiisha da'yarta ah ee soo afjartay kiiskii iyo dilalkii ka dhacayay ee nagu dheeraaday nimankaasaa soo afjaray marka cid kasta oo ay wadanka mas-uuliyaddeeda tahay anigoo keliya maaha iyagoo keliya maaha cid kasta waxaa looga baahan yahay inay dhalinyartaa ku daydaan aad baan ugu faraxsanahay haddaan madaxweyne qarankahay iyo xukuumadda afkoodii anoo ku hadlaya waxaanan guddoonsiinayaa shahaado sharaf ay mutaysteen waa nimanka dalku ku seexdo kuna soo tooso dhalinyartii markaa aan idiin sheegayay ee mutaysatay in la siiyo bilad sharaf iyo shahaado qaaliya oo ay ka kasbadeen qaranka jamhuuriyadda Somaliland halkan mashraxa ku soo dhaweynayaa taliyihii watay mishanka guuleed ayaan halkan ku soo dhaweynayaa waa inuu soo istaagaa waxaa kaloo halkan ku soo dhaweynayaa oo aan leeyahay mashraxa ku soo dhawaato officer hoodo waa inay ku soo dhawaataa hoodo si degdeg ah loogu baahan yahay waxaan aad uga xumahay in hoodo ay xanuunsan tahay ee sarkaalada officer hoodo balse waxaan jeclaan lahaa waxay iyagu kuwana xaq u yeeshanayana xaq bay u leedahay marka in sarkaal ka mid ah uu imaado oo uu haddii u sii qaado jaysadayda abaalmarintayda ku soo dhawow Mustafa in yar kadib waynu qadayn doonaa dhalinyaro
nimanka saraakiisha baan la hadlayaa haddii ilaahay idhaahdo welibana waxaan idinku dardaarayaa oo waanayga ah inaydan sodhan dadaal baad muujiseen oo hawl culus baad qabateen in shaqooyin fara badan ay sugayaan oo mas-uuliyad qaran aad gacanta ku haysaan oo amniga markaa inaad intaa soo keliya hawsha aad ku hadlaysaan laydikama raba inaad dadaalka intaa kasii badisaan oo Hello. Hello. Howda iska waran? Fiican ay sheekay Cabdalle. Waan fiicanahay xanuunkiisa ka tahay. Walaal waan fiicanahay. Ay madaxweynihii maanta xafladii si fiican ma ku dhacday oo waxaan ku yiri bilad qaali inay uu ka soo dhibay. Wala. Haye walaal waxa soo dirtaa. Sawirkeed ku wada jirteen dhamaantiisa. Sawirka ofisaradu aan wada galnay maalintii. walaal. maxaad ku fulaysaa? Xisaan baan haysanaya walaal. Hay imkaan ku soo diraya. Haye walaal. Ahoodo. Walaal Cabdalle. Waan ku soo diray sawirkii ma aragtay? Walaal waan arkay maadsantahay. Ay waxaan ku yiri biladii liiga ka soo dhibay ma ku kanay imkatay? way walaal imika xaafadii baan sraacaynaa meel ban yara tagnaan idig xafiiskii. hay. أصحابي ورف حضر نهاية نكي لقوم قاعدين تلاقي قرصوين تلو وحنا صوري فيسبوك. asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan habboon daawadeer kusoo dhowaada wixii war naga soo gaadhigayga soomaalida iyo weliba daafaha caalamka waxaa habeenimo warka caawa dee inuu la socodsiiyo waa anigoo Fahad Shakiib Siciida qodobada ugu door warkiinaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Tala Wadaag oo markaa warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay xukuumaddu ay ku khaldaneyd in la dilo dilaagii qarsoona gudoomiyaha daladiisa waxaa ka mid ahaa sidan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا قاعد كتوجه حسب معارض كتر وذاك وحنعاود شركة ترايد وقبتين ونسلكم ياري أنا كهالله أما أنا واحد كحسوسيو دليلي بدنا دولة أسود جدا والحمد لله أرت ما توار كشقوي بدنا أرتنا وحقبت دولته أنا وكم حمانا وحوي أنا واحد كم إنه كوي مكان أمريكا سوقته وحكون قبا فإذا كون قبا وضع كنا نكون هنا عروض بين ودقة waxaan maqlayay in ay soo qabteen ninkii ka hore aan u sheegnay dilaaga qarsoon ahaa inay weliba dileen laakiin se waxa weeye sharcigu ma dhigayo in qofka si kasta uu dambi u galo la dilo waxa weeye qofka waa la xidhaa waana la xukumaa
dhanka kale waxa uu gudoomiyuhu salib weyn ka muujiyay abaalmarintii madaxweynuhu gudoonsiiyay dhalinyaradii soo afjartay kiiskii dilaagii qarsoonaa waa loo yeedhay baa leedahay ciidankii qolyihii barnaamijka loo xishaa guuleed taliyihii guuleedkii iyo qolyihiis daba yacyaacay waa loo yeedho waxaa la yidhi biladaa la siiyaa waxbaa la siiy shaqada looga doonaya maanta dowladdu intaasi way ka weyn tahay in bilad la isku siiyo qof dee hal ugu beertan la dilay dee anagu ma intaa inka badan bay shacabku idinka doonaya intaa inka badan bay ummadda idinkaga baahan tahay walaal gudoomiyaha oo hadalkiisa sii watay waxa uu kaloo uu sheegay inay xukuumaddu ay ku fashilantay kaabayaasha arrimaha bulshada waxaana hadaladiisii ka mid ahaa gudoomiyaha sidan tan waxaan kale ku darayaa intaa wix ka dambeeya in dowladdu waxqabadka bilaarso maanta imse dhibaataa jira biyaha fatahayaan xidhan wadooyinkii dadka isdhex jeeray dhibaatooyinkan caafimaadka ka taagan ardaydan aan wadan yartay waxba iskuulaadkoogii iskuulaad la bixiyo ama iskuulaad dowladdu leeda la sameeyo wax lagu barto ma jiraan laba arday baa waxaweye wadada maraya baa gaari ka waxaweye baabuurta yacnihii lug ba ilaa iskuul ku tagay iyagoo halkaas sii socda cid sii qaadataa mada cid basas iskuul kuraysa ma jiro marka baahiyuhu way badan yihiin ma aha qof la soo qabtay inta xaflad weyn loo qabto waxaasoo qarasho talku bixiyo bilaada la isku doosiya anagu ma garana marka horta maanta anugu aad baan uga han weynaa madaxweynaha oo halkan baaqaan uga diray saaxiibkii cabdilaahi cige shaqada aanu kaa doonayno ama shaqada shacabka iyo dalku kaa doonayo in nin la dilay aad bilad waxaweye xaflad waxaasoo qarasha waxaad dad u baahanoo masaakiina ayaa jira de waad jas waxaad oran kartaa waxaweye waa ciidan shaqadoodii qabsaday idinkoo isku sugan unbaad waxaxiina kala dhamaysan kartaan dee barnaamij farxadeedna la qaban karaa laakiinse dee xaflad waxaasoo lacag ay ku baxayso anu waxaan arkaa in indhaha shacabka de aanay dowladdan arkayn laakiinse ballanka inaga naga dhexeeya shacaba waa sideenii annagaadna dooranaysaan saan isku ogeyn wax badan oo ka bedeli doonaa insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu ها هاو isagii meyd baa ku arkaya bil baa ka raysanay hadda soo kan ugu soo noqday hawshi to waxaan ka dambeeya hello taliye waxa la soo sheegay bad news war xun waxa lagu meyd baa yaala maxay halkan laagtan u dhaxaysa jigjigeer iyo xaraaw waan ka sii horreynay iga daway baad idinkuna وش من هيك هي اروح اني قرني كله طيب طيب afar laatankii saacadood la soo dhaafay waxaan waa layla soo hadlay waxa lagu soo wargeliyay inuu dil dhacay markii aan si degdeg u soo hawlgalay ee nimidna dadkii meesha joogay oo dhani way ku soo dhiiran waayeen inay galaan ama ay soo istaagaan dilkan sidoo kale wax cadaymo awaan barbaaray ilaa markii waan baadhay wax cadaymana waan ka waayay waana xamse ninkii sarkaalkii hore ee ciidankan ka tirsanaan jiray ka tegey
soo garaacay marka xoog buu ugu shakiyay haweenan Cabdalle adiga iyo hoodo jacaylka idiga dhaxeeya waxa ka weyn danta qaranka ka weyn waxa weeyaan waad mahadsan tahay waxa la doonayaa hawl walba kugu qaadato waxa weeyaan inanta inaad waxa weeyaan aad hoos dabagal ugu hayso wixii sir ee gudaheega ku jiraan aad banaanka keento waxa tahay officerada aan ugu kalsoonahay baad shaqo wacan saasay noo ay tali hay Mustafa May officerkeeni Mustafa u jooga waxaan doonaynaa inaan wada hadalno waayo waad ogtahay telefaraha way ka baxday nin hore inuu shaqeyn jiray oo ciidankeena hore uga tirsanaan jiray ayaa la dilay waxa laga yaabaa qofka waxa weeyaan officer kamid officeradeeni hore dilay inuu inaga laftirkeena ayna ugaarsado marka waxaan doonayaa inaan feejignaano oo aynu galno emergency meeting waa inaad la hadashaa Mustafa oo aad imika maxay ku tiraahdaa halkee joogtaa si aynu maxayday laba ereys ku nidhaahno Mustafa waxa jirta جبتها كجرا جبتها taliyaha inoo baahan si degdeg ah loo doonayo shir galno marka xagaasan kugu imanaa isdaagan ku hadlaynaa si diyaar اي حتى كسو baxay yani hada shirka garoobay ay taliya maxaa soo kordhay waxa soo kordhay waxa weeyaan hawshu sidaan wadayna way ka culusaatay waxaa laga yaabaa inaga laftirkeena inaan midna loo soo weeraro waxaan u baahanahay inaynu taxadir mar walba aynu muujino oo waxa weeyaan bistooradeena ay dhinaca inoogu jirto inaynu mar walba alert ahaano oo aynu feejignaano ayaa loo baahan yahay waayo ayaantii ugu dambeysay ee aynu tagnay goobta uu shilku ka dhacay ee officerka lagu dilay waxa weeyaan wax caddayn weyn ka weynay 24 saacadood ugu dambeeyayna waxay noo haydun carar bay noo ahayd ilaa imikana waxba ma hayno waxaan doonaynaa inaynu xitaa staylkii aynu u shaqayn jirnay ee mar walba xafiis dhex fadhiga ahaa aynu wax ka bedilno oo goobaha mar walba ina looga bartay aynu u yara digarogno oo aynu aad u shaqaynaa loo baahan yahay